السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا دقيسياشا كحرن channel كان MD أدبان إذي سلامية هالكاني وابرتان MD show أو تسيطوسا نوغا دقيستان نوغا داوتان دمان ببرنامج يدينا تتوباد لا عاو هو مالين سبتيو أو تسيطوسا نوغا لسحوتان channel كان MD show عاو برنامج كيفانكي يسوغانتا وحي نوغو مرتيا أبوان كيني محمد علي أبوان محمد علي أدبان كوسو دويني يا أبوان محمد علي كوسو دو برنامجك أدبان دواي محمد وانكو دواي برنامجك واتاي أبوان أدبان ما هتصنتهاي إن أدنغالا سو قيب قادتو برنامجكيني فانكي يسوغانتا رنتي أدبان اوغو فرحسنهاي أبوان اوغو هرين وحان كعدسن لهين إناد داودياشا iyo dhageystayaasha bal taariikhdaada aad si yaro kooban adigoo soo koobaya aad runtii aad noogu soo gudbiso taariikh nololeedkaygu waa iska gaaban tahay waxa weeyaan waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Xarar Dheere iskuul hoose dhexe iyadaan ku soo qaatay wixii ka dambeeyay iyada ayaa noloshaydu inta badan aan ku soo qaatay magaaladaas iyada waatahay abwan waxa tahay nin ilaahay hibo u siiyay fanka iyo suugaanta haday tahay curinta heesaha haday tahay suugaanta kala duwan dhinaca gabayada maansooyinka runtii buugaag badanna ka qoray abwan marka inta laga yimaado hadii aynu soo dhaadhacno dulucda barnaamijkeena suugaantu iyo maaragtay fanku maanta runtii uu ka duwan yahay kii shalay marka aad dib ugu noqoto shalay bal maxaad ka oran lahayd adigoo na xasuusinaya suugaantu waa runoo shalay iyo maanta isku mid maahan fankii hore fan aad u qiimo badan buu ahaa oo la heli kareenin walow haddeertaan laftirkoodu ay kuwa hadda fanka dhalinyarada dambana aysan dhaliil badan lahayn oo ay meel cidlaa ka qaadeen fankooda sii dhimanaya haddana fankii hore wax dhintay iyo wax duqoobay ayay noqdeen uu baaba'ay fankii hore laakiin wax la heli kara ma ahayno wuxuu ahaa fanka Afrika ugu sarreeyo ahaa fankii hore ee Soomaaliya waatahay abwan fankii hore markaasi nasiib fiican buu lahaa dawlad dhexe lahaa oo runtii markaasi controlaysay oo wax walba ka jeekimaysay oo dadaalkoodan la way wadeen iyaguna fankan maanta maxay kula tahay waxa jira heesa badan oo muuqaal xun oo dhaqan xumiya anshaxoodu aan qurux badnayn oo runtii aad moodo iyagoo ku qaadi karaya heesahooda iyo muuqaalkooda dhaqankooda iyo hidiyo dhaqankooda iyo dhar qurux badan iyo dhaqan bale muuqaalo fool xun oo aan dhaqan iyo hidaba u lahayn ku sameynaya oo markaasi heeso badan oo jacayl saasi ku soo qaada ayaa jira bal kuwa maxad ka oran lahayd abwan محمد لما يراهد جعيل واحد ناس dhaqan xumo ka turjumaya waxaas jacayl ma ahan anigu xaqiiqatan waxaan oran lahaa way wanaagsan yihiin horaan u soo sheegay dhalinyarta hadda jooga inay dad wanaagsan yihiin oo fanka nooleeyeen dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliya ka turjumaya laakiin waxaan kula talin lahaa inay maadaama ay dhaqankii iyo hidihii Soomaaliya ay nooleeyeen inay ka fogaadaan heesmiraha aan macnaha keenin heesaha ay qaadayaan inay ka fiirsadaan
oo ay iska kontrolaan iyagu qofka fanaanka oo qaadaya oo iska jeekimo erayada oo masraxa iyo bulshada la hortegayo abwan waa tahay waad mahadsantahay abwan waxa igu maqaalaa heesa badan inaad qortay ood leedahay ood runtii aad adigu iska leedahay oo markaasi abwaano badanna fanaaniin badan baan u jeedaa aan leeyahay fanaaniin badanna ay ka dalbadeen oonan hadda rabin inaan bartanka magacaabo marka heesahaasi maxaad ugu diiday ood markaasi aad u siin weyday si ay maaragtay u soo qaadan iyagoo runtii in badan ku dabada socday waa run wey arrin waa su-aalo meesha ku jirta maxamed qofka aad isku aaminaysid miro wanaagsan ee aad samaysay qofka aad ku aaminaysid waxaa loo baahan yahay inaad mirihii hore u soo qaaday aad tix raacdid si aad u ogaatid qofkaasi inuu qof u qalmo yahay mirahaas waa tahay abwan ugu dambeyntii iyo gunaanadkii barnaamijka abwan waxaan ku oran lahaa oon ku weydiin lahaa maxaad kula talin lahayd fanaaniinta maanta dhammaan dhaqanka iyo suugaanta gebi ahaantoodba waxaan kula talin lahaa inay ka fogaadaan wax kasta ee wax u dhibaya fanka iyo suugaanta inay ka fogaadaan oo ay waxa ay keenayaan oo ay la shir imaanayaan ay noqdaan wax mujtamaca anfici kara hadday heesa wadaniya tahay hadday heesa jacayla tahay noocay rabto ha noqoto laakiin dadku waxay ku qanci karaan oo aan macno samaynaya inay la yimaadiin waa tahay abwaankaasi wuxuu ahaa abwaan maxamed cali oo caawa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta inoogu martay ahaa halkanina waa MD Show Channel oo si toos ah nooga dhegeysataan nooga daawataan dhammaan daawadayaasheena qaaliga meel kasta oo joogtaanba haweysi wanaagsan tan iyo barnaamijkeena aynu dib ka kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo بدنا أذوق رفع شفاء مش شيء كاهلي مش شيء كاهلي وبسود دقاقي بنا إلى درجة صبها يولس مرج نور بين دياربي ملاي ودحيبو نفسي ويميدي للي بحاسي